secondly maxaa la dhahaa hadda ta inii soo socdo baa adag because maanta hadduu ninku yidhaahdo nimankii keen beri wuxuu ku oranayaa naagtaada isii the way I see marka waa inaad ka tashataan hadduu yidhi nimankii keena mise election male marka waa inaad dhul weyn baad leedihiin dad badan baad tihiin waxaad fadhiisataan meeting maxaa meeshan ka soo baxaya 30 sano baan isaaqnimo ku jirnay maanta maxaa tala maxaa inoo wanaag inaga garxajis iyo isaaqan kale laakiin maalin walba saana dad ku jiraysaa meelna ma aadaysaa muusena ma kacayo muuse alla raxma si aad barebad ka qaylinaysen haddana isaga ka daran baa fadhiya waa inaad decision ku gaadhaan policy procedure inaad samaysataan ma 30 sano oo qaylo maalin walba hub lagu soo diyaarinayo oo lagugu dilayo ma fiicna haddana waxay erigaabo ugu bilaabeen inaad hadhow meel aad ku carartid mise meesha aad dadkaaga ku daawaysid aad weydid mise wax aad soo dejisan kartaa meel aad marisid inaad weydid garxajis waa inuu kaco ani ma xasidnimo caruur sacad muuse baan dhalay laakiin saanu arkay maxaa la dhahaa garxajis maalin walba meel unba يعني square bad ku jirta maalin walba roundabout bad ku jirtaan ma soconaysaan hadda 5 sano ma aqaan baan dhageysanay wiilkii kale 5 sano same thing bad ku jirtaan I'm sorry dan hadalkayga no ku soco marka waa inaad ciiro la fariisataan aad tiraadaan maantan 10 sano 12 sano bad kursigan raadinaysa waad weyday adeerkeena baa tahay waxaanu keenaynaa ninkaad keentaan waa nin like I don't know if Somali maxaad ku tiraan very loud person qofka hadda labor oo kale Soomaaliya qofkay keeneen oo qof qayline qofkii politicska iyo policy ku hadlaya muuse isaga intuu imaan la oran la ana dadka ana HBA maxaa la militariga ma oran laakiin aduu ku oran nimankii keen maxaa ku tusaysaa sidaas waxay ku tusaysaa inaad waxba ahayn you are nobody qofka haduu af Soomaaliga wuxuu dhahaa ma qansinaanta haduu sinaanti samxadu ogolshay isn't it that's what I think marka I'm sorry see you later guys when degeysane wan ka degaya degina sug haalo horta soo dhawow abay degteenatay welcome sister waxaan doonay ku jeeso su'aal sister how do you feel بعدما baad tahay gabadh maragtay dhulbaanta caruur aad leedahay muuse reerkooda ka soo jeeda dagaaladii sentimentally what did you feel which side baad qaadatay marka adigu ani ninka isaaq waxaan kala tagnay culturally dagaalkiisa haye markaas ha because marka ani maanta oo dhan intirisid ii caaynisid I don't think so and waxaan u arkay psychological emotional caruurteeda ugu fiicnaa inay waxan ku jiraan wuu ku caayi jiray marka imaan jiray maanta oo dhan Soomaaliland sida magacayaha buu habar Yoonis u bixiyay habar jeclo magaca buu bixiyay marka gabadha habar Yoonis aan saaxiib nahay xitaa marka waxay igu dhacaan iyada ugu horeysa albaabkayga soo istaagaysan kartay magaca buu ugu yeeri jiray haye baan ka fikiran ka tashtay markaas igu dambaysa 2012 wiil baan dhalay markaas maca salaama baan iska yiri because man rabin ma hayga inuu ku soo koro uqdad la and the difference between habar Yoonis yo habar Yoonis wixii si sharaf leh u kala tagaysan ama dagaal haduu yahay si sharaf leh u dagaalamaysan laakiin I'm sorry dad ku jirtaan Saad Muuse mise habar maanta oo dhan waxbay kula raadin waxa dad meesha u soconin buu yuuse maanta oo dhan ma dhamaanayo marka very hard to deal with that waxay dadkan magacyada u bixiyay maxay ahaayeen uga jeedo magac like cheap qofti hadda Ingiriisian jooga wuxuu u bixinay Aldi waa shopping ka cheap ka moota waa dukaankan Aldiga ha wuxuu u bixinay Lidl ka habar jeclo way marka xaska maan helin aniga humanity ba fiican waxay muxuu bixi jiray dhulbaataar muxuu bixi jiray
dhulbaantaa waa labada dukaana ugu jaban xaggeygana warunteeda dhulbaantaa muxuu bixin jiray walaalo wuxuu u bixin jiray Palestinian waxyaalaha buu bixin jiray yani xitaa ma sharfeeyo dadka soo galaya wuxuu oranaya way soo socda magac buu siinay marka aniga walaalkay maalintu u yimid Afrika ka yimid waxbuuro filhaye Palestinian kiba is urursanaya meeshaas oo kaalshale dagaalka saniri this is not the way to go baniri marka ma kala tagteen waxay السلام عليكم 10 sano ka hor